السلام عليكم. haddii aad raadinayso macluumaad tayo leh oo ku saabsan suuqyada maaliyadda gaar ahaan forex iyo crypto waxaan ku haynaa fursad weyn booqashada website-ka ustaadka .blogspot.com oo maalin dhow insha Allah u iibin doono domain-ka waa meesha ugu habboon aad ka heli doonto wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu guulaysato suuqyada maaliyadda. website-ka ustaadka waxa ka buuxa maqaaladii ugu dambeeyay kuwaas oo ku saabsan maalgashiga forex iyo crypto iyo falanqaynta suuqyada maaliyadda. waxaad ka heli doontaa qoraallo iyo talooyin kaa caawin doona inaad si hufan u fahanto suuqa. waxaan si gaar ah uga hadli doonaa mowduucyada sida staking, trading bots iyo crypto, falanqaynta fundamental iyo technical forex, iyo sidoo kale sida aad uga faa'iideysan karto fursadda suuqa haddii aad rabto inaad noqoto maalgashade xirfad leh. website-kan waa meesha ugu muhiimsan ee aad ka faa'iidi doonto. waxaad si fudud uga heli doontaa macluumaad faahfaahsan iyo tallaabooyin la isku halayn karo. ma aha oo kaliya inaad ka faa'iideysato maqaaladan halkan ku qorno, laakiin sidoo kale waxaad ka helaysaa faham qoto dheer oo kaa caawinaya inaad mar walba suuqan crypto iyo forex aad ku guulaysato. haddii aad u fiirsato Sakariya Hagarlaawe sida uu trade gareeyo fundamental iyo technical, maqaalkan oo kaliya ayaa ku soo koobaya. sidoo kale haddii aad doonayso inaad suuqyada maaliyadda ku biirto, halkan waxaan ku dhignay crypto forex baad ku dhufanaysaa, Binance halkan ayaad iska diiwaangelinaysaa. sidoo kale muuqaalkan description-ka ayaa idin dhigi doona, comment-gana pin ayaa idin saari doona linkiyada saxda ah la iska diiwaangeliyo. sidoo kale exchange-ka crypto ee Max Exchange wuxuu kaa caawinayaa inaad iska diiwaangeliso oo passport ay u yeelaya inaad ku trade gareyso oo aad iska diiwaangelin karaysaa. isagana halkan ayaa linkiisa saxda ah idin dhigayaa. sidoo kale linkiga saxda description-ka video ayaa idin ku bast gareynaya. sidoo kale haddii aad jeceshahay inaad ka shaqeysto forex, waxaan kugula talinayaa inaad furato domain marks broker kaasoo Rajan Bank. haddii aad ku dhufato waxaad ogaan doontaa waa maxay domain market, sida uu shaqeeyo, sida la isku diiwaangeliyo. article-kaas keliyata ayaa kuu sharxaya sida loo furto domain market. markaad akhristo article-kan halka u hooseeya tegaysaa, linkiga halkan ayaan ku dhigaa iska diiwaangelinaysaa. sidoo kale haddii aad Binance Exchange doonayso iska diiwaangeliso, isagaad ku dhufanaysaa, hoos baad u daadegaysaa, wada akhrisan sida la isku diiwaangeliyo. halkan ayaa iska diiwaangelinaysaa, linkiga saxda ah isagana halkan ayaan ku dhigay. sidoo kale haddii aad doonayso Max Exchange oo crypto aad ku shaqeysan karso bilaa passport, isagana waad ku dhufanaysaa, waad akhrisanaysaa, isagana halkan hoose ayaan ku dhigay linkiga iska diiwaangelinayso. sidoo kale mowduucanna waad akhrisanaysaa waana sida la isku diiwaangeliyo. sidoo kale halkan waxaad ka faa'iideysan kartaa waa tools badan ayaa ku jira. haddii aad mar walba waa talaadhaa Google AdSense wuxuu aqbalaa articles intaasoo article. marka halkan aad tegaysaa waad ku bast gareysanaysaa. tusaale ahaan imika word counter-kaas ayaan ku furayaa, waan furayaa word counter-ka, tusaalkaas ku tusayaa. sidoo kale halkan waxa kugu jira AI tools, article-ka dib buu kugu qorayaa kani. sidoo kale waad iga arkaya qoraalka ayuu kugu bedelayaa af Ingiriisi. sidoo kale tan dhawaaqaad ku baranaysaa word development tools-kii, financial calculator-kii, sidoo kale salary-gaaga ku calculate garaysaa, unit-kii, minus xaggan iyagana kugu jira general calculator-kii, counter-kii, stopwatch-kii, sidoo kale Islamic nabiga ku salid ducooyin. markaas aad uga faa'iideysan saaxiib. halkan tools badan ayaa ku jira, waad booqan doontaa, isagana tijaabin doontaa. marka tusaale waxaan idin sheegi doonaa tusaale imika word counter-kan sida uu shaqeynaya. waaye waxaan ku dhufan doonaa blog baan ku dhufan doonaa, waxaan eegi doonaa saaxiib waxaan eegi doonaa tusaale imika kaas ayaan ku dhufan doonaa article-kaas. article-ka aan ka qornay sidee ay suuqu u saameeyaan falanqaynta fundamental iyo technical. article-ka hordhacan ayaan ku soo koobiyay garanayaa ilaa waxaan tegayaa xagga hooseysa ilaa halkaasaan tegay si uu faak su'aalaha la iska weydiiyo marka inta koob ban leeyay. article-lada aan team ahaan qornana waa articles aad u tayo sareeya. koobi tusaale imika su'aalaha la iska weydiiyo badanaa midka ayaa fiican fundamental iyo technical, halkan ayuu ku jiraa, halkan aad ka akhrisanaysaa. sidoo kale ma isticmaali karaa labadaba isku hal mar, halkan aad furaysaa, waad akhrisanaysaa. sidoo kale sidee ayaan ku bilaabi karayaa, iyagana halkan aad akhrisanaysaa. marka waxaan ka waday maqaalkan ay noo soo koobiyay word counter ban tagayaa, halkan tagayaa oo ku bast gareynaya content words ban leeyahay. waa ka imika wuxuu sheegay in wordskaygaas ka kooban yahay 415. waad arkaysaa 415 inuu ka kooban yahay, waad arkaya. sidoo kale waad masixi karaysaa, sidoo kale undo waad soo celin karaysaa, waad waaweyn karaysaa farta si aad ugu akhrisato, waad yareyn karaysaa, sidoo kale waad koobi gareyn karaysaa, deetana waad ku bast gareysaa meesha doonaysa. sidaas ayaad uga faa'iideysanaysaa. website-kan waa website qurux badan oo aadan uga shaqeynay team ahaan. insha Allah maalin dhow domain-ka waan iibin doonaa. muuqaalka like saar, sii share garee, ka faa'iideyso, comment-iga iyo description-kana wax walba u baahan tahay idin dhigi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.